waxaa maanta qaybtii ugu horeysay ee xujayda soo gudanaysa waajibaadka xajka ay ka dhuufeen garoonka diyaaradaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Diyaaradda caalamiga ah Juba Airways ayaa maanta ka soo degtay garoonka degmada Cabudwaaq ee Cabudwaaq International Airport iyadoo halkaas ay ka qaaday ilaa iyo 100 ruux oo soo gudanaysa waajibaadka xajka ayna fududeynayso shirkadda socdaalka ee Juba Airways. intaysan ka duulin garoonka caalamiga ah ee Cabudwaaq International Airport ayaan qaar kamid ah xujaydii halkaasi aan kula hadalnay waana kuwan qaar kamid ah dadkaasi. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إلهي وما هذا اسكله ما أنت وحنا كله فينا international airport عوضة شان أي وهبيين وairport كأساسين وتذكر ديجان كل ما نوع علينا قارها وحنا كنا علينا جودة airport. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم محاساك إلهي مهدي سنة وحشيدي عوضة إنا نكبحنا airportkii عوضة أو أي دقمدا يددك الدياسبرا يدستين إنا الحمد لله رب العالمين إنا معناها airportka عن السنين ما أنت حشيدي وهريسي عن هاي دقمدا عوضة كبحة أيام هاي وحنا آدي مقرنسا أنو أو ما هذيننا أو آدي مقرنسا دي أنو لفتقى وشد عينا ددك airportka لسي وجودها كيف وقت عوضة ما شاء الله أنا ما أنت شواء ما أنت كدوفي على airport عوضة وأنا فرحت waxaa ka dhoofaya airportka Cabudwaaq waana ii farxad Allah barakeeyo ma sha Allah way hay ka tasaagana markii ugu horeyso macnaha baxdaa mise waa hore u baxday xajka waad wallahi waa markii koowaad marka see shucuurta oo taa maanta waa faraxsan ayo wax ku faraxsan maanta inaad meesha barakaysnaa u socoto ma sha Allah maamada si kastaba ha ahaatee waa xujeedii ugu horeysay ee ka duusha garoonka degmada Cabudwaaq ayna qaado diyaaradda Juba Airways waxayna qayb ka noqonaysaa xujayda ka baxaysa dunida islaamka. Yuusuf Cabdi Shire waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq.